بعد السلام عتب كلابات قضب كيس كوي تبنات وحقوقنا هي سدة مواطنين تودن يجوا عن لو إيجين لاب يوديك دين مذب حالات بلشو أمد قالة أفكار سياسيات قبيل نافنمو حرفت دلشو إسر دا إيو أفجوري تون حقوق دي واجبات كوي اسميهين حير كهورتي سوى فقسن شريعة الإسلام مركا قضب كان وحاكجر دينتنا وحانقصو شيخنا عتب كوات قضب كيس اللبات حرف مرنا كوات اللبات وأقرنا سيدان إسلامك ودين تدلك جمهورية فدرالية الصومالية دين أنا هين إسلامك لو مفافين كرو دلك جمهورية فدرالية الصومالية سيدا دراد هذا شعبك الصوماليات بقول وادد مسلم سني isku madhab wax kala qeybi hab yaraatee ma laha marka mudane gudoomiye waxaan codsanaynaa qodobkan in diinta laga saaro maadaama aan nahay dhammaanteen dad muslimiin ah isla qodobkan xarafka labaad asna wuxuu leeyahay waxaa reeban in qofna lagu sameeyo si toos ama dadban takoor ku salaysan da midib qabiil isir dhaqan afguri lab iyo dhadig dhalasho naafanimo diin afkaar siyaasadeed xirfad hanti ama sababo kale marka waxyaabaha la isku takoora diinta ka mid aha anaga shacab hal diin haystaan nahay marka waxaan rajaynaynaa xildhibaanada sida ay sheegeen xaraf maxaa la kalimadan diinta in laga saaro maadaama dhammaanteen aan isku diin nahay isla qodobka 11aad xarafkiisa ama nambarkiisa afaraad qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay awgeed uguma baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldambiyeed uu galay qodobkaas si fiican uma cadda guddigii soo qabanqaabiyay dastuurkii horena kuma jirin marka waxaan rajaynaynaa in si fiican loo soo caddeeyo waxyaabaha loola jeeda iyo maxaa la xasaanada iyo qodobkan meeshay iska qabanayaan iyo maxaa la meeshay iska qaban leeyihiin in si fiican loo caddeeyo ayaan rajaynaynaa qodobka 14aad nambarkiisa labaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay amniga qof ahaantiisa iyo hantidiisa qofna looma geysan karo qaab kasta oo jirdil ah ama fal bani aadamnimada ka baxsan waxaa reeban xarig ama sharci waxaa reeban xarig aan sharciga waafaqsanayn iyo wax kasta oo cunfi ah oo ay ka mid tahay kan lagula kaco haweenka marka waxyaabaha haweenka lagu kaco maxaa ka mid ah in la cadeeyo oo maxaa lahayd meeshaas dambigaas in la laakiin uusan iska furnaanin waa rajaynayna insha Allah hadii Ilaahay idma sidoo kale gudniinka fircooniga anaga Soomaaliya banahay muslimna banahay horta kalimadan fircoon intay naga soo gashay ilaa hadda ma fahminaane marka gudniinkan fircooniga oo gabdhahan la jirdilaayo maxaa lahaay dhiig bax iyo rafaad badan uu keenay in maxaa lahaay xadidaad loo sameey gabadha hadii la gudaay sunnada maxaa lahaay sida loo gudaa in la cadeeyo dhaqaatiirta ay cadeeyaan culimada ay cadeeyaan oo wax maxaa lahaay criteria leh in la sameeyo ayaa rajaynaynaa insha Allah tan kale qodobka 17aad ee la tiray waan bogaadinaynaa maadaama Soomaali dhammaan ay yihiin dad muslimiin ah wax kala qeybi ama qof diintiisa waxa way sida qoran qof kasta wuxuu xur u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa marka sharcigan ama dastuurkan waxa loo dejinayaa ummadda Soomaaliyeed oo muslim ah oo maxaa la wax kala qeybi hab yaraatay aysan jirin tan saxaafadda qodobka 16aad wuxuu ka hadlaa xurriyadda mutlaq adduunka ma jirto al-xurriyya tahta al-qaanuun freedom under the law qofku xurriyadiisa waxay ku dhamaanay qofka kale xurriyadiisa meesha ka bilaabanaysa qofku inuu qof